ku suntan currency-gii dunida Mareykanka ayaa ku suntan dabcan shiinuhu awood badan oon ahayn taa ganacsiga waqtiga xaadirka ma laha runtii caalamkuna way soo bixi doontaa wixii jirta laakiin waxaan maqlayaa oo aynu dhammaanteen wada arkaynay de-dollarization inay rabaan oo kale oo in dollarka ay ka takhalusaan currency-na ay la yimaadaan maaragtay wadamada Brexit la magac baxay ee Shiinaha iyo Ruushku ay hogaaminayaan taa iyada waxaynu dhammaanteen wada ognahay waa sababihii maaragtay Ciraaq lafteeda loo burburiyay maaragtay dollarka haddaad meesha ka saarto dhib badan baa maaragtay kugu imanaysa tan maaragtay ganacsiga dunida aad weydiinayso walaal Cabdi haddii aad eegto 2019 dhammaadkoodii maaragtay the world largest exports waxaa ku guuleystay oo xilliga laga soo bilaabo maaragtay dhaqaalaha dunida qaybtii ugu weynayd maaragtay Shiinaha oo micnaheeduna uu yahay maaragtay wax kasta oo la dhoofinayo iyo wax kasta oo la soo saarayo dibadda waxa weeye awoodda ugu badan isaga ayaa leh cashuurtu yaa bixinaya marka hore si aynu u fahanno madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu China bixinayo Japan ay bixinayso wadamada uu ku soo rogay ama Europe ay bixinayso ama Canada ay bixinayso ama ay bixinayso Mexico kaba soo qaad marka dal kasta oo cashuur uu ku soo rogay marka hore cashuurta iyada ma bixinayaan wadamadaasi waxa bixinaya marka hore ganacsatada wadanka iyo madaxweyne Trump marka hore muu fahmin cashuurta maaragtay dhibta ay leedahay waayo cashuurta haddaad kordhiso dabcan cashuurta iyada dalkaaga dhaqaalihiisii ummadaada maaragtay nolosheedii wixii markaad eegto maaragtay haddii maciishadii ay sare u kacayso dalka Mareykanka gudihiisa badeecadihii soo galayay ee kala duwanaana cirka ay wada aadayaan dabcan taa iyada shacabka Mareykanka dhammaantood maaragtay cost maaragtay living crisis sababtuna waxa weeye cost push inflation qiimaha wax lagu iibsanayo ama qiimaha badeecadihii ay rabeen oo dhan baa sare u kacaya dhaqaalayahan Cabdi Cali Daakir oo ku taqasusay cilmiga dhaqaalaha kana howlgala bangiga ugu weyn qaaradda Yurub sidoo kalena haysta shahaadooyinka PhD-da iyo masterta ayaa si cilmiyeysan uga hadlay isbeddelka dhaqaale ee adduunku galay iyo cashuuraha madaxweyne Trump ku soo rogay badeecadaha ka yimaada wadamada Shiinaha sidoo kale waxa uu ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta Soomaalida maxay door noocee ay ku yeelan kartaa cashuurahaas ugu horeyn aqoon-yahan ku soo dhawow Xogreed TV sidaad u aragtaa cashuuraha uu soo rogay madaxweynaha Mareykanku maadaama aad ku taqasustay dhaqaalaha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka hore su'aasha aad weydiinayso oo maaragtay arinta caalamka oo dhan maaragtay ka muuqata cashuurta uu soo dejiyay maaragtay madaxweynaha Mareykanka ama cashuurta taariifka dabcan si ay ummaddu u fahanto marka hore cashuurta uu soo dejiyay waxa maaragtay uu ku soo rogay wadamadii ganacsigu uu ka wada dhaxeeyay maaragtay dalka Mareykanka dabcan cashuurtaas aynu arkaynay muddo 2 bilood ahayd ka hor inuu madaxweynaha Mareykanku uu ku goodinayay ama maaragtay uu ku hanjabayay inuu soo rogi doono waxaan u maleynayaa 3 bisha inay ahayd maalin Arbaca oo habeen Khamiis soo galayso inuu ku dhawaaqay maaragtay cashuurtii sidaynu dhammaanteen ka wada warqabno caalamka dhaqaalihiisa sawirka ka soo baxay ayaa waxa uu aaday hoos u dhacaad iyo aad u weyn waxa aanad moodaa maaragtay in burbur aad iyo aad u culus uu ku yimi guud ahaan dhaqaalaha adduunka markaad eegto haddii aan ini xasuusiyo wax yar cashuurta uu soo rogay madaxweyne Trump ama policy-ga uu maaragtay isticmaalayba oo cashuurta inuu maaragtay wadanka uu keeno ama cashuur uu ku keenaba maxay ahayd toolay wadamada ciddii kambaniyada iyo shirkadaha lahayd policy-ga isaga policy la mid ayaa xilligii Great Depression dalka Mareykanku uu maaragtay ku dhaqaaqay
dabcan xilligii great depressionka ama 1930gii boliciga ay qaateen ee cashuurta ku kordhinaysay dowladda iyada ah dhibaato badan burbur badan ayuu waddanka ku keenay runtii marka bolicigaas xilligii great depressionka iyo kanuu hadda sii daayey madaxweyne Trump waa labo bolosi oo dalka dhaqaalihiisa iyo maaragtay caalamka maaragtay badeecadaha isu gooshaya iyo caalamka maaragtay integrationkii jiray oo maaragtay marketka si saxa caalamka oo dhan maaragtay waxay rabaan u geynayeen waxay rabaanna ay ka iibinayeen ayaad moodaa inay khatar uu ku yahay bolicigiisani haddii aan wax yar ina xasuusiyo madaxweyne Trump marka hore muu fahmin cashuurta maaragtay dhibta ay leedahay waayo cashuurta haddaad kordhiso dabcan cashuurta iyada dalkaaga dhaqaalihiisii ummadaada maaragtay nolosheedii wixii oo dhan bay maaragtay ku tahay khatar marka cashuur in waddan kasta uu maaragtay ururiyo oo dowlad kasta ay ururiso maaragtay waa waajib oo waa public duty taa iyada in la bixiyo meel kasta ay waajib ku tahay laakiin cashuurtan uu soo rogay waa cashuur maaragtay aad iyo aad caalamka oo dhan iyo dadka dhaqaalaha garanayaaba maaragtay ay ka dayrinayaan maaragtay aad iyo aadna khatarteeda ule maaragtay madaxweyne Trump cashuurta uu soo rogay dalalka bixinaya waa kuwe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات walaalkay cabdi ama wariye runtii haddaad eegto dhaawaca ku imanaya dalka runtii waxaad tiri ood weydiisay dhibta ma waxay gaadhaysaa Mareykanka mise waxay gaadhaysaa maaragtay wadamada kale marka hore inaynu ogaano cashuurtu yaa bixinaya marka hore si aynu u fahanno madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu China bixinayo Japan ay bixinayso wadamada uu ku soo rogay ama Europe ay bixinayso ama Canada ay bixinayso ama ay bixinayso Mexico kaba soo qaad marka dal kasta oo cashuur uu ku soo rogay marka hore cashuurta iyada ma bixinayaan wadamadaasi waxa bixinaya marka hore ganacsatada wadanka waxa kale oo bixinaya shirkadaha wadanka iyo wixii company ee alaabta dalkooda u soo waaridaya maaragtay taa iyada ayad moodaa inuusan madaxweynuhu fahmin marka hore khatarna waxay ku noqonaysaaba dhanka kale markaad eegto dalka Mareykanka iyo shacabka Mareykanka ayay dhaqaalihiisa khatar ku tahay waayo haddii ganacsatadii cashuur lagu soo rogay iyagu waxay cashuurta saarayaan maaragtay waxa weeye badeecadahay keenayeen maciishaday keenayeen energy-gii iyo electronic-gii iyo wixii dunida la keenayay oo dhan ay ka keenayeen ayay saarayaan si yar oo fududna waxa markaas u imanaya maaragtay cost push inflation maaragtay qofkii dhaqaalaha garanaya dabcan costiga ama qiimaha ayaa markaa inflationka keenaya waayo kor bay u kacayaan wixii marketka yaalay ama suuqa yaalay haddii aad eegto markaa shacabka Mareykanka wax kasta waxay ku noqon doonaan qaali maaragtay wax kastana maaragtay dhibteeda ayay ku keenaysaa cashuurta uu soo kordhiyay waa cashuur maaragtay dunida oo dhan markaad eegto ku keenaysa maaragtay dhaqaale burbur aad iyo aad u weyn sidoo oo kale madaxweynaha waxaad moodaa in si saxa marka loo eego boliciga uu qaatay oo cashuurtan uu ku soo rogayo maaragtay dalalkii ganacsiga uu ka dhaxeeyay inay khatar ay ku keenayso dunida oo dhan maaragtay badeecadihii isku socday iyo dhammaan maaragtay caalamka maaragtay wixii wanaag ahaayee ka muuqday anoo xasuusinayo qof kasta in waqtiga xaadirka growthkii xataa la filayay oo maaragtay in dunidu maaragtay kobac u yimaado muddadaa yar aan u malaynaya weegba inaysan ahayn growthkii la filayay uusan jirin waayo growthka waxa keena waxa weeye baac mushtariga iyo ganacsigaas buu ka yimaadaa kobaca dhaqaale intiisa ugu badan waqtiga xaadirka ana caalamka oo dhan suuqyadiisii iyo maaragtay sayladihiisii waaweynaa stock marketku ama wall stock marketkuba maaragtay uu cakiran yahay ama maaragtay khatar badan ayaa maaragtay dul hooganaysa dhammaantood marka aad eegto cashuurta uu maaragtay madaxweyne Trump uu soo rogay maaragtay
dalalkii isaga airlineska la ahaa ama westernka iyo dalalkii kale ee maaragtay brexitba wadamadii dhaqaalaha maaragtay badan uu dhex marayay oo ganacsiga uu la lahaa uu kusoo rogay dabcan dhaqaalaha maraykanka maaragtay iyo global economics markaad eegto khatar aad iyo aad u badan iyo burbur aad u badan ayay ku keenaysaa caalamka oo dhan sababtuna waxaa weeye goods waxa la yiraahdo iyo serviceka ayaa kor u kacaya dabcan wax kasta oo caalamka warshaduhu soo saarayeen wax kasta oo caalamka la iibsanayay ayaa cerka isku shareeraya servicesku waxaa weeye maaragtay cashuurihii oo kor u kacaya fiigii oo kor u kacaya iyo khadamaadkii oo kor u kacaya taas baanad moodaa caalamka markaynu eegno in ay threat ay ku tahay waayo cost of living crisis dhammaanteen markaynu eegno waddan kasta iyo caalamka oo dhan sida ka muuqata dhaqaalaha dunidana waxaa burburiyey maaragtay tension yar oo kacay ayaa dhaqaalaha gebigiisaba abaabada u xidhaya caalamka maanta waqtigaan inla hadlayo dunidu waxay aaday maaragtay dariiq khaldan waxaana rajaynayaa in meel fiican loo guuro maaragtay wadda iyo dhaqaalaha maraykanku waa sidee hadda walaalkay cabdi ama wariye cabdi caalamku waxa uu ku kala tegay waa dhaqaaluhu hubka maanta dunida jira aynu arkayna ee nuclearka ee maaragtay qaarad kasta lagu burburin karo dhaqaaluhu uu ka culays badan yahay hubka nuclearka ee maanta wax gumaadaya oo markaad eegto haddii dal uu kaa dhaqaale bato maaragtay si yar oo fudud ayuu kuu maamulanaya sababtuna wuu kaa awood badan yahay maaragtay danta uu rabo iyo waxa uu rabana si fudud ayuu maaragtay kaaga fushanaya arrinta iyadaana waa arrinta aad aragto wadamada soo koraya oo dhan markaad eegto qaaradda Africa iyo Asia iyo South Americaba markaad eegto maxaa keenay in dalalkaasi wadamada westernka ama wadamada dhaqaalaha leh maaragtay ay ka resource iyo khayraad badan yihiin maaragtay halkaa waxaad ka aragtaa hubka ugu weyn ee maanta dunida maaragtay yaala ee wax kasta ka khatar badan inay tahay maaragtay dhaqaalaha dunida markaynu eegno dhaqaalaha jira saddex meelood marka laga dhigo dalka maraykanka aynu garanayno 1/3 ayuu ku fadhiyaa dhaqaalaha dunida markaad eegto dalka maraykanka sidaynu la wada soconno dhammaanteenba waa tii aynu arkaynay isaga iyo shiinaha in maaragtay trade-ka markaad eegto ama cashuurta uu Trump u waajibiyey khaladaad aad iyo aad u khatar badan ayaa dunida hor yimi laakiin waxaan xasuusinayaa qof kasta dalka maraykanku dhinacyo badan marka la eego inuu yahay dalka maaragtay ugu awooda badan waqtigan weli jira laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee dunidu markii uu dhammaaday quwadihii waaweynaa ee dunida markaa iyada ahayd waa tii awoodii jirtay ay ku wareegtay dalka maraykanka new world oo dharka xilligaa yimina maraykanka ayaa tan iyo xilligaas dunida hogaaminaya new world orderkuna waxa weeye siyaasadda dunida in maaragtay lagu daba fadhiisto siyaasadda maxay ahayd toolay dhaqaalaha dunida inaad maamusho iyo security-ga dunida maaragtay inaad maaragtay hogaamiso waana tii uu ku suntan yahay maaragtay westernka uu horkacayo dalka maraykanka awoodda leh ayaa dhammaanteen waxaynu aragnaa in isdiidooyin badan ay soo baxayaan oo caalamka oo dhan maaragtay ay ka taagan yihiin madaxweyne Trump oo muddo aad iyo aad u yar joogay 80 cisho waxba la jiraan u malaynaya ayaa dunidii wuxuu ku keenay maaragtay kacdoon aad iyo aad khatartiisa u leh oo dhaqaalihii dunidaba maaragtay hal mar maaragtay khatar geliyay maaragtay dunidii oo dhanna aad moodo inay recession ama hoos u dhac dhaqaale dhammaantood ay wada wajahday dhaqaalayahan nolosha dadka maraykanka cashuurtu maxay ku keeni kartaa markaad eegto maaragtay
haddii maciishadii ay sare u kacayso dalka maraykanka gudihiisa badeecadihii soo gelayay ee kala duwanaana cirka ay wada aadayaan dabcan taa iyada ah shacabka maraykanka dhammaantood maaragtay costi maaragtay living crisis sababtuna waxaa weeye costi bush inflation qiimaha wax lagu iibsanayo ama qiimaha badeecadihii ay rabeen oo dhan baa sare u kacaya dabcan taa iyada ah ayaana khatar ku ah maaragtay Trump ku noqonaysa iyo maaragtay bolisigiisa haddii wax yar aan xasuusiyo miisaaniyadda ama dalka uu ku wadayo 2025 6 trillion weeye budgetka dawladdu ay ku socon doonto sida aynu ka wada warqabno dakhliga soo xiranaya ama cashuurta revenue-ga soo imanaysa waa 4 trillion micnaheeduna uu yahay dawladdu waxay ku jirtaa markaa iyada 2 trillion deficit oo government deficit marka dawladdu waxay soo deynsan doontaa maaragtay sanadka u horeeyaba $2 trillion iyadoo oo maaragtay dalka maraykanka markaad eegto deyntii hore ee national debtiga ama deyntii lagu lahaa ay ahayd $36 trillion iyadoo 2 trillion ay ku darsami doonto ay aadi doonto maaragtay sanadka u horeeya uu joogo ninka la yiraahdo Trump uu joogo madaxilaadka sanadkiisa ugu horeeyaba aad arkaysaan in maaragtay 38 trillion inuu ku riixay deyn wadankii kana badan kartaba marka la eego marka bolisiga uu qaatay oo dhaqaalaha maaragtay ayaa aad iyo aad maaragtay dalka dhaqaalihiisa iyo shacabka noloshoodaba khatar ku ah waxa aad arkayseen oo maaragtay uu ku sameeyay cut badan uu ku sameeyay dadkii maaragtay waaweynaa maaragtay lacagtii la siinayay iyo dadkii kale ee masaakiinta ahaaba iyadoo aynu dhammaanteen ka wada warqabno inuu dadkii riijka ahaa cashuurta uu ka dhimayo maaragtay oo aad iyo aad maaragtay ay khatar u tahay iyadoo ay muuqato maaragtay maraykanka ay ka muuqato maaragtay rich become richer poor become poorer maaragtay waana wax lala yaabo aqoon-yahan ganacsigii ka dhaxeeyay Shiinaha iyo Mareykanka iyo dalalka Yurub iyo dollarkii oo ay ka shakisan yihiin ama ay diidan yihiin maxaa xal ah tan maaragtay ganacsiga dunida aad weydiinayso walaal Cabdi haddii aad eegto 2019 dhamaadkoodii maaragtay the world largest exports waxa ku guuleystay oo xilliga laga soo bilaabo maaragtay dhaqaalaha dunida qaybtii ugu weynayd maaragtay Shiinaha oo micnaheeduna uu yahay maaragtay wax kasta oo la dhoofinayo iyo wax kasta oo la soo saarayo dibadda waxa weeye awoodda ugu badan isaga ayaa leh oo maaragtay global supply chain-ka marka la eego dunidu baahideedu aad bay u tiro badan tahay demand-ka dunidu maaragtay dal kasta iyo qaarad kasta waxbuu siiyaa ama waxbuu geeyaa maaragtay ganacsigiisa sidaynu ka wada warqabno markaad eegto Mareykanka deficit buu ku jira ganacsiga uu la leeyahay Shiinaha oo Shiinaha ayaa geliyay deficit dabcan sidoo kale qaaradda Yurub markaad eegto uu ka awood badan yahay dhinaca ganacsiga deficit buu geliyay EU-da oo dhan dalka Britain sidoo kale marka Shiinuhu wuxuu waqtiga xaadirka uu muuqdaa maaragtay caalamka maaragtay baahida jirta ee badan maaragtay 50% global supply chain-ka maaragtay isaga ayaad moodaa maaragtay caalamka wixii supply inuu siiyo halkaas oo kale uu ku awood badan yahay laakiin dhanka kale markaad eegto Mareykanka ayaa dhaqaalihii dunida hogaaminayo haysta markaad eegto hay'adihii caalamka wax bixinayay Mareykanka ku suntan currency-gii dunida Mareykanka ayaa ku suntan dabcan Shiinuhu awood badan oon ahayn taa ganacsiga waqtiga xaadirka ma laha runtii caalamkuna way soo bixi doontaa wixii jirta laakiin waxaan maqlayaa oo aynu dhammaanteen wada arkaynay de-dollarization inay rabaan oo kale
oo ah in doolarka ay ka takhalusaan currency-na ay la yimaadaan maaragtay wadamada Brexit la magac baxay ee Shiinaha iyo Ruushku ay hogaaminayaan taa iyada ana waxaynu dhammaanteen wada ognahay waa sababihii maaragtay Ciraaq lafteeda loo burburiyay maaragtay doolarka haddaad meesha ka saarto dhib badan baa maaragtay kugu imanaysa ama wadanka gaaraysa ama madaxdiisa gaaraysa maaragtay waxaynu ka wada warqabnay Libiya Qadaafi arintaas in maaragtay isaga laftiisa ay galaafatay markii uu yiri doolarka maaragtay uma baahnin maaragtay gool African gool lacag ah kala ah ku xiran ayaanu sameysanaynaa watiisna wadankiisii iyo dalkiisiiba la baabiyay sidoo kale waxaynu ognahay Venezuela oo resource-ka ugu badan shidaalka ugu badan leh dunida waxa haysta iyada lafteeda waad la socotaan doolarka ay ka hortimi waxaynu dhammaanteen wada ogeyn maalin dhaweyd oo hadda ah Ruushka in maaragtay uu yiri shidaalkayga qaaradda Yurub ay u baahan tahay waxaan ku iibin doonaa currency-gayga oo currency-ga Ruushka ayaan ku bedelayaa dhuumihii shidaalku soo marayay aad arkayseen Nord Extreme 1 iyo Nord Extreme 2 labadaba waa tii banaanka la dhigay caalamka oo dhan uu arkayay baan u malaynayaa dhuumaha shidaalku soo maro 500 milyan ayaa noloshooda raashinkooda waxay cunayaan waxay cabayaan ee u soo marayeen waayo energy-gii qaaradda Yurub oo u baahnayd oo dhan baa marayay marka qofka is yiraahdo doolarka taabo doolarku waa awoodii westernku uu lahaa oo Mareykanku uu hogaaminayo dabcan taa iyada caalamka waa la isu gubaa waana la isdili doonaa oo dagaal kulay lagama fiirsan doono laakiin kulay waxba imanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh Dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo kuman kuwa noo mihin daawada